Xaaska Jamaal Khashoggi oo laashay casuumaad uga timid madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxay hadalkaasi ku sheegtay wareysi ay goordhaweyd siisay telefishinka qaranka ee Turkiga. Wareysigaasi oo ahaa midkii ugu horreeyay oo laga qaaday tan iyo markii la dilay seegeeda bishii Oktoobar 2, waxay xustay inaysan aqbali doonin casuumaadda uu u fidiyay Donald Trump ilaa Mareykanka uu daacad ka noqonayaan dadaalka baaritaanka ee dilka seegeeda Jamaal Khashoggi. Dhanka kale, mar wax laga weydiiyay in dowladda Sacuudiga ay la soo sameeyeen wax xiriir ah, waxa ay sheegtay inaysan la soo xiriirin, waxayna carabka ku dhufatay inaysan Sacuudiga tagi doonin haddii meydka Jamaal Khashoggi lagu aasayo. Xaaskii Jamaal Khashoggi oo ilmeysay mar wax laga weydiiyay markii uu seegeeda galay dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, waxa ay sheegtay inuusan seegeeda wax shaki ah ka qabin in lagu dhex dhibaateeyo qunsuliyadda lagu dhex dilay. Ugu dambeyn, waxay ku baaqday in baaritaan caalami ah lagu sameeyo qaabkii loo dilay Jamaal Khashoggi.